munaasabadani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo qabanqaabiyey islamarkaana ay soo diyaariyeen ardayda kala duwan ee fasalada form 4 ee dugsiyada Cumar bin Khadaab ee magaalada Boorama ay ujeedadeedu daaraneyd xiritaanka sanad dugsiyeedka 2022-2023 islamarkaana ardayda kala duwan ee fasalada form 4 ay microscope ku wareejiyaan maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi kaasi oo ugu talagaleen in ay xasuus ahaan uga sii tagaan dugsigooga. munaasabadani ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta kala duwan ee dugsiyada Cumar bin Khadaab, ardayda kala duwan ee fasalada form 4 ee dugsiyada Cumar bin Khadaab iyo mas'uuliyiin kale. waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ardayda kala duwan ee dugsiga waxayna sheegeen horta maanta waa maalin maxay dareenkeeda iyo farxadeeda iyo wasa haddaan gabayahay waan gabiilaa maanta waan ka xumay laakiin gabayga ma garanayo anagu gudoomiyaha iskuulka ma ogeyn xataa maxay yaday isaga la keeniyay lab ee waxa islaam marka jilwadka la qoro baxso sababtoo wax qabada iskuulka dhimaasoo kordhin macallimiintii kamayni farxin laakiin si aad baan ugu mahadnaqayaa ragga de haddaad hawsha qabateen kulli aniguna sheer ma ku haytay soma ya wata koobaad waxaan mahad celinayaa maamul Cabdi Wahaab oo dhamaanteen ba horta aabo inoo marka xaqiiqada laga hadlo dhamaanteen baan inoo yahay maalinta koobaad inagoo wada sasan waynu u nimaadnaa dad waxa dhaca qofka yar qoro meelaha ku xareeyay maalinta dambana waxa ka soo baxay qofkii maxaan ku sheegay wax garada wax noqday oo maxaan ku sheegay khalad iyo saxba kala saari kara waa talabaad maxaan ku sheegay haddaan anagu fanfaranahay wiilasha iyo hablaha de waxa la yiri 20 jir intuu geed ka boodo talana ka booday hadaan soo qaldanay iyo hadaan soo qabsanay hadaan soo laynayba de maanta heshiinayo anaga bahalkii loo tashtay soo keenay meeshii dhamaanteen maanta waxaynu ka tageynaa meel aynu soo joognay 12 sano oo aynu waqtigeeni qayb kamid aynu ku qaadanay waxaynu u gudbaynaa meel kale aynu ku cusubnahay maanta hor kulli waynu ducaynaa dhamaanteen waxaan leeyahay kuwii wada baasa guul fiican wada keenan oo rajaynaya inta hadan ka imaadon hadalkayga uu soo noqdo horta hadalka waxa soo hadlay walaalkay Mubaarak gudoomiye baa soo hadlay anu kulli in yar baan u hadlay in yar oo hadhay oo mahadnaqa oo gaar ahaan maxaan ku raadaa intii qof ee arday kasta iyo maxaan ku raadaa inaan kasta iyo wiil kasta oo halkaas hawsha wax qabadkaas ka qayb qaatay kuna jiray wax qabadkaas inagoo barbaartii isku wada duuban wajiyaasha aadka u quruxda badan ee ku aftirsada Cumar bin Khadaab ayaa runtii Cumarka sidiisa waxa loo yaqaan isku duubni baa la yiraahdaa wada tashi wada wacan ilaahay waxaan doonayaa inuu inagu guuleeyo dhamaanteen if iyo aakhiraba inagoo wada guuleysanaa hadalkayga waxaan ku soo gaabinayaa war maanta maxay hay'adeen intaan muddadaas oo dhan soo wadnay gabagabay taagan tahay cid ismalihi maanta waxba istiijiidanaysaan inamaduna saas oogeed waxa la yiraahdaa weyniga calool fiican yihiin hablahana saas oogeed waxaan rajaynayaa dhamaantiin wajiyaashaadka quruxda badan ee qaayaha badan leh inaad mustaqbal ifayaad yeelataan wani hodhowrta hadii aynu ilaahay isku xidhno mar walba aynu gaadhinaa guusheena mar labaad waxaan macallinayaa macallimiinteena intaas oo dhan soo garab taagnaa kulay maanta waa maalin dareenkeeda wadata maalmaha kamid iskuulka soo galisay maanta kalnada ka sii baxaysa waayo iskuulka aanu maalinta nimanay koodii bishii 9aad 2019 maalin khamiiseed ayaan nimid iskuulka maanta 24 bishii 5aad 2023 maalin arbaca marka waqtigu saas oo carreeya waayo macallinka juqraafiga noo dhiga Maxamed Ibrahim Qowrax ayaa maalin guuri maalintan uu raxiisadii horiisay noolaha kulay bari ka maalin ayad fofor dhamid doontiino aan maca salaamin doonti yaani waan sawirin kari waay waqti dheer bay lahayd maanta waa taagan mid kale aan ugu dari lahaa taasoo ah war wax kasto guul hadii la sheego cabsi Ilaahay bay ku rantay markasta inuu Ilaahay ka cabsano oo Ilaahay isku xidhno oo Ilaahay tala saarno guusha labada daarood way gaaraysaa kadarta inoo soo socotana insha Allah taala waxaan rajaynaynaa wad guuleysano hadalka waan dheereeyay ugu qaata kulli dareen baa anigu ma hadlin dareenkayga hadlayay oo waxaan inta iskuul inta soo dhiganay ayaa maanta ka tagaya kulli maanta maalin mugdi ahaan doontaa insha Allah waxaan rajaynayaa inaan imtixaankan ka dubi doono insha Allah gubal rajaynayaa labada daaroodba maasantiin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh dhankooga qaar ka mid ah maamulka iyo macallimiinta oo iyaguna hadalkaysiga kala dambeeyay ayaa u mahad celiyay ardaydooda mar labaad waxaan iniga mahad celinayaa kulli munaasabadan aad u soo qaban qaabiseen inaad waxtar waliba muuqda aad uga tagtaan dugsiga oo ah baalka uu baahnaa biology-ga arday iyo macallinba loo baahnaa kulli qolaba waxbay ka tagtaa raad fiican baad ka tagteen wax laga tagana wax dadku ay ka sii faa'iideystaan baa kulli adduunyadu way iska socotaa intaad nooshahay ugu muhiimsan waxaan leeyahay dhammaantiin waad ku mahadsantihiin aad baan iiga mahad celinaynaa
madashan quruxda badan ee ardayda 4B iyo 4A isugu yimaadeen ee lagu maamuusayo microscope-kan waana wax aad iskoolku ugu baahnaa weyn waxaana dareemi kara in iskoolku u baahnaa iniga dareemi kara wax badan oo intaad iskoolka joogteen had faa'iideysan lahaydeen wax badan ba marka ku xidhan microscope-ka aadna waa ugu mahadsantihiin inaad hawshan qabataan hal muxuman nagula dardaarmi lahaa waxaan oran lahaa horta xadhiga ilaahay in loo haysto taqwada ilaahay in laga cabsoodo xilligii ugu fiicnaan oo ku jirtaan shabaabnimada marka ilaahay ku xidhnaada dad ilaahay ku xidhnaataana waxyaabo badan buu ilaahay nolosha u neefuri doonaa oo ku guuleysan doontaan munaasabada ugu weyn ee maanta inoo taala waxa weeyaan microscope-kaasi waxaan uga mahad celinayaa labada fasal 4A iyo 4B aad baad ugu mahadsantihiin waxqabadka aadka u ballaaran waxa weeyaan muhiimadda ay leedahay waa la garanayaa macallin Qaasim baa soo taabtay waxa weeyaan caafimaadka ayay muhiimadda ugu koobaad u leedahay talabaad way isdhaantaa in wax lagaaga sheekeeyo waxaad maqashay aad ka waranto leeyahay shayga iyo shaygaas jiri jiray ama dhacay iyo wixii aad indhahaaga ku aragtay ee aad u aragtay marka tani waxay faa'iideyn doontaa qaybta visualka aad kaaga caawin doontaa qof walba runtii markaan fasalka form 4A saaka galay anoo ogeysiiska imtixaanada wada ayaa waxa la yaabahayd arday Yuusuf Cabdi Maxamuud la yiraahday markuu soo galay in ma aragtay ay fasalkii shucuurtiisa ay isbedeshay say wax noqdeen markaa islaha marka bawnadii ardayda uu tusayay buu taagay macalinkeegina waa kan hanaga gudoomo kadibna microscope kaasoo ku jira kartoonkiisii baa fasalkii la soo dhigay markeliya waxa halkii ka dhacday waxaanan filaynin marka waxaan ku yiri mufaaji'ay arintani ahayd waana arin aad ka soo shaqayseen laakiin annaka farxad bayna kana noo tahay halka beerta ka soo bilaabantay guud ahaan labada fasalna waxaan leenahay hambalyo ilaahay hayni guuleeyo intan kuma ekaan doonto haduu ilaahay dhaado markaan imtixaanka ku guuleysanana insha Allah waynu kulmi doonaa mar labaad waxaan halkan rabaa inaan uga mahadnaqo guud ahaan anigoon kala reebayn fasalada afraadka ee dugsiyada Umar bin Khadaab sanadkan ku metelaya imtixaanka shahaadiga ardayda fasalka afraad ee B iyo ardayda fasalka afraad ee oo run ahaantii ah groupkii 7aad ee iskuulka ka baxaya sidaas isku aqoonsaday inaad tihiin groupkii 7aad halka marka dugsiga dhaxana uu ka baxayo sanadkan groupkii 8aad uu ka baxayo run ahaantii waa wax aad iyo aad loogu farxo xafladan maanta aad kadiska naga dhigteen ee aadka nooga farxiseenna waan idinku mahadnaqaynaa caadada ardayda dugsiyada Umar bin Khadaab sanadka afraadka ka baxaysa ayay ahayd in marka qolo waliba ay dugsigayga kaga tagto wax dhaxal gala oo taariikh gala idinkuna marka xooga waxaad saarteen idinka yalodkii idinku horeeyba qaybtii tacliinta waxaanad ku soo biiriseen laabkii dugsiga Umar bin Khadaab ayaa waxaad ku soo biiriseen microscope-ka oo run ahaantii muhiimadiisa leh ugu dambeyntiina waxay si rasmi ah ardaydu ugu wareejisay microscope-kii ay u soo iibiyeen dugsigooga maamulka dugsigaasi